xildhibaan cabdilaki xasan nuur oo ka mida golaha deegaanka ee degmada burco iyo inta badan haldoorka dhalinyarada gobolka togdheer ayaa xalay ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo lagu soo bandhigayay buugaagta ay qoreen qorayaasha hablaha ah ee reer somalilan nada yuusuf cumar iyo muna axmed cumar iyo weliba suugaantii abwaan farxaan ismaaciil maal oo suugaan lala wada dhacay islamarkaasna uu ku qaadayay codkii allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timcad oo uu soo qabanqaabiyey naadiga akhriska iyo qolgaraan soo bandhigay waxaa buugaagta ay labadaasi hablood qoreen si kooban u soo bandhigay kana soo diyaariyey warbixin kooban oo ka hadlaya nuxurka buugaagtan qorayaasha naadiga halkaraan bashiir salebaan aadan raacdeeye iyo saare ayaan jaamac xaydle waxayna kadib su-aalo laga weydiiyey hablaha buugaagta qoray oo madasha fadhiyay ujeedada ay u qoreen caqabadihii ay la kulmeen iyo waxyaabo badan oo ku saabsan buugaagta ay qoreen ee baadidoon iyo beerta qoyska nada yuusuf cumar iyo muna axmed cumar waxay si waafiya uga jawaabeen su-aalahaasi waxaana kadib suugaan aad loogu diirsaday iyo sheekooyin kaftan iyo jacayl u badnaa halkaas kusoo bandhigay abwaanka daada yar ee farxaan ismaaciil maal bashiir ayaaba runtii sharaxaad fiican ka bixiyey intuu bashiir ka yidhi ama horena uguma odhan dibna uguma odhan doonaba reer burco mar labaad aad baan idin salaamayaa aad baad u mahadsantihiin xalay status baan qoray facebook oo nabi burco magaalada kafsanka iyo qosolka runtii ilaa markii aan soo galay ilaa in kuwan qoslaya runtii waa dad aad u farxad badan waa dad kaftan badan aad baan ugu raaxaystay intii aan joogay waan jecelahay in ka badan inaad la joogo waan idinku soo noqon doonaa gobnimada aad muujiseen aad baan ugu mahadsantihiin ilaahay waxaan nooga baryaa dhammaanteen aniga iyo idinkaba dhammaan musuumadda muslimiinta inuu nolosha qoyska inoo wanaajiyo hadduu qoyska nagaga soomaal waa la aqoonsanay soo moogidin la aqoonsiga ku yaalo goobna cawda ahaydoon casar laysu gaadhay maanta waageygeniyo garabkiisi labaade nin walow gacmahaaga sacabkaysu garaaco guulowa mahadaade waxaa iyaguna hadalla dhiirigelin bogaadin iyo dardaaran isugu jiray madasha ka soo jeediyey xildhibaan cabdilaki xasan nuur saare maxamed cali oo ah gudoomiyaha halkaraan maxamed siciid oo ah gudoomiyaha jaamacadda adis maxbuub xuseen xogayaha dalada sayna iyo xamse cabdi ibraahim oo ah soo saaraha iyo hagaha barnaamijka han iyo himilo oo dhowaan lagu qaban doono magaalada burco dhammaantood waxay bogaadiyeen soona dhoweeyeen kuna dhiirigeliyeen hablahani buugaagta qoray ee beerta qoyska iyo baadidoon abwaan cali dhanaaniya iyo abwaan nagiib salebaan muuse ayaa iyaguna suugaan isugu jirta dardaaran iyo hoga tusaalaynta dhalinta maanta halkaasi ka jeediyey gabagabadiina waxaa naadiga halkaraan shahaada sharafyo iyo buugaag ay qoreen qorayaasha reer burco ee uu ka midka yahay cismaan saalax faarax uu guddoonsiiyey qorayaasha buugaagta baadidoon iyo beerta qoyska nada yuusuf cumar iyo muna axmed cumar iyo weliba farxaan ismaaciil maal waxay qorayaasha iyo abwaankuna wadajir naadiga u guddoonsiiyeen shahaado sharaf iyo qayb ka mida buugaagta baadidoon iyo beerta qoyska iyadoo ay jireen xubno kale oo iyaguna hadiyado buugaag iyo shahaado sharaf iyo guddoonsiiyey abwaanka iyo waliba qorayaashaasi waa mustafa cismaan magaalo mustafa tiijar telefishinka qaranka somalilan magaalada burco.